غزوة الأحزاب يوحى السؤال هذا فلسطين وحكى الصعودة غزوة الأحزاب سيئة وقال لك جودهم مسلمين تا محل جربي وحال جربي مسلمين تدقال كان أحزاب ليرادو إن لغد دبر الجرا استئصال ليرادا دبر جوين هل روح أو ضمبة أو مسلم إن الله أركن أيه وحلو سوروري طبعا كل عيدنا أو سوجرا قريش هي أنت قاشم بورت الله مجال سجر المدينة أو النبي صلى الله عليه وسلم وكوه جامنا أصحابته يا الله هريري مركز وحقان له جاري إن مجال هذا أنت كجرت أو النبي وجوه الرجل اللي تديله جوان كاس سوقاتين لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يهودي حتى ماشى الدجنيد هشيس كقيبته كعيد أو الإسكوجا مجال المدينة هدي له صويرره كمجال أهان كمواطن أهان دجنانش مجال ده دجنته هيدراده وحواجب كوجا كاسر إن الدفاع له سيل السوجا أو يهودنا قيب كعين إن الدفاع جلان لجربي نقضوا العهد بلنت يجيبين markaas quraysh ay imaatay waxay dhahan guul ayaa soo socota muslimiinta waa la baabin doonaa hadaa guush hadda wax ku dirsan weydaan oo dagaalka aan la gali weydaan hadhow guusha markii la gaaro qaybsashada guusha la qaybsan doono waxba la idin ka siin maayo yahuud maxaad ku taqaanay xoolo jacayl ballantii ay isku ogaayeen nabiga ayay buriyeen markaas aaqnan oo lagu ogaa ayaga inay ilaaliyaan ayaa waxa war ka soo yeeray ilaalin iska dhaafe ayaga ba dagaalka soo galay ayaga waxay u baahan yihiin wax hor istaaga ciidankii la kala qaybiyo qaar lagu jiheeyo yahuudi balanta jabisay nabiga aad uga xumaaday markaas wuxuu ku yiri asxaabtii intuu la tashaday ka warrama yahuudan hadaan dhaho timirta madiina ka soo baxaysa sanadkan hadii saddex loo qaybiyo qayba idin siinaynaay ma nadaynaysaan oo dagaalka ma ka joogaysaan saas ma dhaha yaani meesha arintu ay gaartay Sa'd bin Mu'adh oo aws qabiilka leeyahay ee ansaar ka tirsan hogaamiye waaha yaa wuxuu ku rasuulka ilaahay nimanka yahuuda leeyahay waan isnaqaanaa meeshana oo wada deganaan jirnay waligood xoolo aan leenahay xoog kuma ayna qaadanin annagoo ilaahay ciidada islaamka nasiiyay timir ma siinayna wallahi la nu'dihim illa hada sayf sayftan ban siinaya sayf ayaa inaga dhaxaysay ani iigu iida waa yuhuri marka hawsha socotay gal way sabaabuleen wala hareeyay dadkii wala rafaaday wazulzul zilzalan shadiidan markii ugu dambeysay dabayl ilaahay ku diray gaaladii way jabeen way carreen cabsida meesha ay gaartay fiiriya qisaan nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam dadkii ciidankii kor fadhiyay ee gaalada ah way jabeen way baxeen oo xaaladooda waxba ka si yaa war iiga keena oo iiga soo warramo oo u dira meesha markaas qof istaaga la waay cabsida iyo dhaxanta iyo gaajada jirtaadeed wuxuu riyaan u ballan qaadaa asaga oo nabada inuu ka soo noqonayo yaa iiga soo warramay cid istaagtaa la waay wuxuu riyaa meesha iiga soo warramaya oo jannada rafiiq ugu la noqonaya cid istaagtaa la waay ilaa markii dambe uu nabigu ka yiraahdo Xudayfa ibn Yaman ka sheekeynaya qum ya Xudayfa soo istaag mar dalka gaartana فلا بد من الإقامة وإن الاستاجمر وركل مجر مر جلس عيمي مركو رم عيد فلنتير يا أجر ربا أو كسر رم أيه لكن مركي اللي اسمه عابه أو اللي يراد هبل ويستاج مركي نقطه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ماشى تعالى نبي وركي سوين لقاته مركز وين استاجوين وحالي أرد بح ماشى تك يقصوا ورن ولا تحدث فيهم شيئا وحنا كسمينين يعني هذا وحلا جاربا شقدا وحيتاي inaad war ka keento dagaal inaad gasho lagu ma ogolo waa tagaysaa xaalada soo qiimeynaysaa waa soo noqonaysaa waxna ma sameeynis waayuu u bax wuxuu markaan dadkii dhaxmaray ciidankii dhaxmaray Abu Sufyaan oo hogaamiye Quraysh ah waxaan arkay buu keligii meel iska fadhiya markaas waxaan soo kan hogaamiyoodii ma ah hadaad qoorta ku dhufatay ka waran hogaamiyihii baa la dilay ay noqoto hadana waxaan soo xusuusin nabiga oo dhahaya wala tuhdith fiihim shay'an adu waxba ku sameyn war la iikan bas meeshii aan dhaxma maray أبو سفيان وحوها عبقريه وحبو الدرامي إن عيدك لصور حقلي وحوي الورمية وانشك سنة هاي نين والبو نينك كجود جن مجعي سويدي ومقلع حذيفة أنا كلا هور مرويدي لابد إن عادي جرتي ورمجعاء عندنا مجعاء إيش يا جمهوري بس وحكي اللي مويديني أستغرب هالشيء قبل صدق قف كمومك وقف عقلي بدل مسوا جايو أنت ما صارت بدح لوقت وفت مسوا جايو شو بنتو إسكانو مجعاء الحذيفة الأمودا أساك كلا هور مرة هو تري إن الجبان وعر مركز أبو سفيان وحوري ماشان فني مياه ليه نين والبو هرت هذا ورد مركز الجديد كنت أنت كوبودين أي بحين
حذيفة ترتيبتي وصل نقضي وركي أيو كاني لمن كان سوي بحين مركز النبي وحوري الآن هذا وحي كدم بايا نغزوهم أنكم باكدوا لي دونا ولا يغزونا نقوم السودوا لي دونا وين لما تشاكدس